sidaad horeyba ula socoteen waa taariikhdeeni taxanaha ahayd madaxweynihii shanaad ee dalka Soomaaliya Cabdiqaasin Salaad Xasan aynu ka sii anbaqaadna haddaba halkii ay noo joogtay taariikhdeenu waxaa ra'iisul wasaare loo doortay Xasan Abshir Faarax 12 Noofambar 2001 si uu soo dhiso xukuumad cusub kadib dawladii dagaalkii ay la gashay Muuse ayaa dhiirigelisay hogaamiye kooxeedadii kale dagaalkaas ayaa dawladda looga qabsaday baro muhiim u ahaa xilligaasi dawladda ayaa sheegtay in si ku talagal ah uga baxday meelahaasi si aan loogu dul dagaalamin shacabka madaxweyne Cabdiqaasin ayaa in badan diidanaa in uu dagaal galo wuxuuna mar walba sheegi jiray in badbaadada shacabku muhiim u tahay mar walba haddaba khilaaf dhex maray Cabdalla Deerow iyo Xasan Abshir oo isku dhinac ah iyo madaxweyne Cabdiqaasin ayaa xaaladii dawladda ku meel gaarka ahayd si xumeeyay iyada oo aan haysan taageero caalami ah waqtigaasi isla waqtigaasi waxaa soo ifbaxay khilaaf u dhaxeeyay dawladii ku meel gaarka ahayd iyo dawladda Itoobiya dawladii Cabdiqaasin ayaa Itoobiya ku eedeysay in ay faragelin ku hayso arrimaha gudaha Soomaaliya si arintaas looga jawaabo wasiirkii difaaca Soomaaliya Boqor Cabdilaahi ayaa ku dhawaaqay in uu isugu yeero dhammaan ciidankii xoogga dalka waxayna isugu yimaadeen garoonka Stadium Muqdisho laakiin dawladda ayaa ciidankii u sheegtay in laga qaatay 5,000 oo kaliya inta kalena ay fasax yihiin ciidankii ayaa niyad jab kala tagay maadaama qaarkood ay meel fogfog ka yimaadeen dawladda Cabdiqaasin ayaa lagu xasuustaa soo celintii magacii dawladnimada Soomaaliya bilowgii dib u dhiska booliiska bilaabidii dib u heshiisiinta qabiilada taas oo yareysay dagaal beeleedyadii socday muddada badan iyo hanaqaadka nidaamka doorashooyinka Soomaaliya waxaa kaloo ay ku suntan tahay in ay ahayd dawladii ugu horeysay ee Soomaaliyeed ee lagu soo dhisay nidaamka qabiilka ah ee 4.5 oo waqtigaas xal loo arkayay madaxweyne Cabdiqaasin waxa uu xilka hayay ilaa 5 Oktoobar 2004 xilligaas oo uu xilka ku wareejiyay madaxweynihii lixaad ee dalka Soomaaliya madaxweyne Cabdiqaasin Salaad waxa uu hadda ku nool yahay dalka dibadiisa halkaas ayaynu ku soo afmeeraynaa daawadayaal iyo dhageystayaalba taariikhdii Cabdiqaasin Salaad Xasan